cudurrada nafta aadamaha ku dhaca iyo suluukiisa kuwa ugu khatarsan waxaa ka mid ah cudurka la yidhaahdo wahsiga. in adigoo xoog iyo awooddii leh aad waxba qabsan karin weyn, aadan waxba xaqiijin karin. aqoontii baad leedahay laakiin aqoontaadu midho iyo wax soo saar ma leh. xooggii iyo muruqii baad leedahay laakiin wax soo saar ma leh. waad wahsanaysaa, nashaadkii iyo firfircoonidii baa kaa maqan. waa cudur wey. cudurkaas dadka oo dhan buu haystaa, ninba in uu dhan yahay, ninba in buu u joogaa, laakiin dadka waa wada haystaa. dadka qaarkood waxaad arkaysaa dhinac uu u jeedsado iyo hawl uu qaabilo oo uu wax ka keeno ma jirto. qur-aan xifdi buu bilaabayaa, markuu wax yar qabto waa ka istaagayaa, kadibna hawshii oo dhan baa istaajinaya. cilmi dalabkiisuu bilaabayaa, dhowr majlis markuu fadhiisto waa dhaqaaqaya. adduunyo iyo shaqiya xamaal buu gelayaa, adkaysi male waa soo cararaya. waxbarashuu gelayaa, meel ma gaadhsiinahaye waa ka tegahayaa. kasalka noocaas iyo wahsigaasi akhiiran ruuxa wuxuu gaadhsiiyaa wax la yidhaahdo inuu nolosha ku fashilmo. tan adduunka keliya ma ahe, ta aakhara xataa inuu ku fashilmo oo wixii siduu uga wahsanayo oo dib ugu riixayo waad qaban doontaa iyo isgaargaadhaysaa shaqadii. kadibna naftu waxay ku qancinaysaa iyo shaytaanku maba qaban kartid iskada marka intaada isaga jir. cudurkaas waxaa sababa oo keena laba, shaytaanka iyo naftaada xuntay kugu jirteen khayrka kula rabin, khaasatan markuu ku saabsan yahay wahsigaagu ilaahay daacadiisa iyo wixii aakhare aad wax ku heli lahay. wixii ilaahay jeclaa markaad ka wahsanayso shaki ma laha waxaa ka dambeeya shaytaan oo kugu sallidmay oo ku haysta iyo naftaada xunta oo la shaqaynaysa. laakiin ilaahay fadligii tabaaraka wa tacaala, alla tabaaraka wa tacaala cudur ama mid macnawi ha noqdo ama mid maadi ha noqdo cudur ma soo dejinin ilaa daawo u soo dejiyey, sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh. daawadaasi cudurrada loogu talagalay qaarna bini aadamka ilaahay waa u furo waa tusaa, qaarna waxaa laga yaabaa inaysan muddo helin oo ynan iktishaafin. laakiin cudur aan daawo lahayn ilaahay ma soo dejinin tabaaraka wa tacaala. wahsigu marka wuxuu leeyahay daawo leeyahay. daawooyinkiisa waxaa ka mid ah asbaabta wahsiga kaa saari karta, kaana dhigi karta cunsur mujtamaciisa wax soo saar leh, naftiisa anfaca, mujtamaciisa anfaca, wax beero oo midho soo saara, adduunkiisa iyo aakhiradiisaba wax qabad ah inaad noqoto waxaa kaa dhigi karaya inaad asbaabta qaadato. asbaabtaana ka waxaa ka ah oy ka bilaabataa horta noloshan waa inaad leedahay hadaf iyo qaayo aad doonayso inaad xaqiijiso. waa inaad taargad leedahay. maxaad rabtaa inaad noloshan xaqiijiso? taargad iyo hadaf iyo qaayana waxaa ugu weyn tii laynoo abuuray oo ah inaan ilaahay caabudno rabbigeen raalli gelinna tabaaraka wa tacaala. marka inaad nolosha qaayo leedahay ood hadaf leedahay oo meeshaad u socoto aad garanayso, waxaad doonaysa inaad xaqiijiso waa inay kuu caddahay. marka kadibna saad ku xaqiijin lahayd waa inaad maraaxil iyo u dejisato jidkaad u mari lahayd. haddaadan hadafba lahayn dariiqa bilowgiisaad faashil tahay. dariiqa bilowgiisaad faashil. noloshaaduna waa nolol wahsi iyo meermeer iyo hurdo iyo dib u dhacaw. qodobka labaad, markay kuu caddaato waxaad u socotay meeshaad u socotay, waa inaad la timaaddo go'aan qab ah oo qalbigaaga ka soo go'ay oo aad rabto inaad ku xaqiijiso. alcaziima asaadiqa
go'aan adag oo qalbigaaga ka yimid waa inuu jiro hadduusa qalbigaaguba mutaraddid yahay ousan go'aan lahayn oo daciif yahay ma samaysaa iska daa qanaaco kulliyana aadan ku haysanin ayadana waxay ka mid tahay waxyaalaha keena meeshaad u tillaabsataba inaad soo fashilanto sidaas daraaddeed waa in aad go'aan qalbigaaga rasmiya gaadho inaad shaygaa xaqiijiso bini aadamkana nebigu wuxuu ku sheegay sal alla alay wasalam sifaadkiisa waxaa ugu run badan uguna qabsan wax lagu sifeeyo waa hammaam waana xaari hammaamku waxa weeye wuu doonitaan badan yahay intaa qalbigeennu ma istaagayo sakan ma istaagayo waxbuu doonayaa waxbaa soo gelaya waxbaa ka baxaya yacni humuum baa soo gelaysa khawaatir baa soo gelaysa go'aan buu qaadanaya waa isbeddelayaa waa in marka wax weeye aad la timaaddo go'aan adag la timaaddo go'aankaasi waa meesha wax ka go'aan hadduuba qalbigaagu daciif yahay iyo go'aankaagu nolosha waxba ka xaqiijin mayso iyadana waad wareersanta qodobka xigaaya saddexaad waxa weeye waa in markaad go'aan gaadho dadaal rasmiya aad la timaaddo oo dadaalkii uu u baahnaa waxaad u socotay iyo hadafkaad rabtay inaad xaqiijiso dadaalkiisii waa in lagaa helo inta tabartaada inaadan ishakranin inta awooddaadaa waa inaad bixiso haddaadse ishakrato ood camalkii iyo shaqadii loo baahnaaba qaban weydo oo aad barkinta dheeraysato waxba ma xaqiijin kartid sidaas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala labadaa arrimoodba hal aayad buu ku sheego wuxuu yidhi waman araada alaakhira wasaca laha sacyaha wahuwa mu'min faulaa'ika kana sacyuhum mashkuura ruuxii aakhara doonaya doonid aakhara horta waa inay kugu jirto kadibna ma doonid keliya kugu filan maya wasaca laha sacyaha camalkii iyo shaqadeediina waa inuu la yimaado dadaalkeedii la yimow yaa doonitaanka qalbiga iyo go'aankiisa kadib shaqadii gal adkaysi u yeelo ilaahay sunnadiisa weeye tabaaraka wa tacaala qodobka xigaayi waxa weeye dadaalkaa markaad la timaado keligii kuguma fillee rabbigaa kaalmayso awooddeennu waa iska xadidan tahay kownkanna ilaahay baa gacanta ku haya wuxuu bixiyey unbaa baxa wuxuu diidayna waa diiday isagu hadduusan kuu kaalmayninna waxba ma xaqiijin karti kay dadka jannada wuxuu nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam kelimada ah laa xawla walaa quwata ila billah awoodi ma jirto xeeladina ma jirto ilaa ta alla mooye tabaaraka wa tacaala adiga awooddaadiiyo xeeladaaduna waxba ku tari mayso in ilaahay kuu kaalmeeyo mooye juhdigaaga iyo dadaalkaaga haddaadan kaalmo rabbi kaashanin oo rabbi kuu kaalmaynin midho ma dhalayo saas daraaddeed baa rabbi qur-aanka wuxuu inagu baray hal aayad ah baa waxaa laynagu baray ujeeddadaan u nool lahay iyo ujeeddadaa jidkaan u mari lahay iyo wasiiladaan ku xaqiijin lahay ujeeddadaan u nool lahay maxay tahay iyaaka nacbudu waay allow keligaa baan ku caabudaynaa waa ujeeddadii laynoo abuuray wasiilada iyo jidkaan u maraynana muxuu yahan ku xaqiijinayna wa iyaaka nastaciin adaan kaalmo ku weydiisanaynaa ya maba xaqiijin karna haddaadan noo kaalmayn asbaabtaa waxaa ka mid ah in haddii intaad dadaasho aad ku fashilanto waxaad rabtay waad gaadhi wey derbi baa kaa hor yimid ha isdhiibin ha niyo jabin gadaal ha u guranin isku day haddana jidka ka wareeg dhanka kale ka soo gal ha barin naftaada wax la yidhahdo dacfiga ha barin naftaada wax la yidhahdo isdhiibidda ha barin naftaada inay gadaal u gurato meesha aad gaadhay horay uga soco derbiga kaa hor yimid isku day inaad jabiso ood ka gudubto haddaad jidkeeda heli kartana soo wareeg laakiin dib ha u guranin lanna man lajja walaj haddaad albaabka ku madax adayto waad ungeli marka dambe laakiin haddaad daciif noqoto xogaa yar markuu kaa hor yimaadaba adib u cararto xogaa markay kugu adkaataba aad tiraahdo war meeshan lama geli karo adeer wax weeyaan dadkii adduunkan iyo aakhiratoona wax ka xaqiijin lahaa mati waxaa ka mid ah asbaabta in aad la saaxiibtood la noolaatood mujtamaca ka doorato dadka
hamiga sare leh dadka cazimada adag leh dadka muntijiinta wax soo saaree wax xaqiijiya ee aadan la noolaanin oo la saaxiibin dadka wahsada kuwa dariiqyada taagtaagan oo waqtigooda meelaha taagtaagnida ku lumiya oo sheekaysiga maqaayad iyo fadhi ku dirirka ku lumiya oo mar uu jiifo iyo mar uu qaad cunahayo iyo mar uu sarqaansan yahay ay tahay dee kuwa haddaad la saaxiibto nolosha waxba kama qaban kartid adeer iyagoo kale unbaad noqon man jaalasa jaalas darisku wuxuu ku siiyaa wuxuu yahay saaxiibkuna wuxuu ku siiyaa wax uu isagu watuu ku siiyaa sidaas daraaddeed dadka liitay hooseeya alla saaxiibi xataa haddaad daciif tahay dadka wanaagsanee sare markaad la saaxiibto kor baad u kacaysaa ayagaad gaadhaysaa waxoodii bay wax kaa siinayaan waad ku dayanaysaa waa ka nabigeennu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxu cidda uu la socdee saaxiibka la yahay ayuu diintiisiiyo dhaqankiisa leeyahay ee ka fiirsada ciddaad la saaxiibaysaa marka ka fiirso yaad la socotaa dadka nolosha ka dhacay oo daatay haddaad la socoto dadka yacni jaraa'imta galhaya ee mufsidiinta haddaad la socoto sidoodoo kale unbaad natiijada ku dambayn doonta sidoodoo kale unbaad ku dambayn sidaas daraaddeed dadka hamigoodu sarreeya wax xaqiijinaya cazimada leh ee kasalka iyo wahsigu aan lahayn ama uu ku yidhi waa la saaxiib wax badan baa iska kaa bedeli asbaabta waxaa ka mid ah inaad ilaahay barido tabaaraka wa tacaala inaad ilaahay magan gasho laba arrimood baad ka magan gasho wahsiga waxa keena oo shaytaan iyo naftaada ah aad badiso inaad ilaahay ka magan gasho وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إلهي ما ينقل كعر نبي قيلنا صلوات ربي وسلام عليه دعادي سيوحا كم ذهيت إنه ليه شري مركو ربي أسمادي سكبر يكذب أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك الله وحان مغانك أقعهد الشيطان كشرتيس إيا النفط إذا الشرك هذا نفط الشرك هذا لما ينبانك أقعهد هي الشيطان كدبن كيس أما الشرك كيس ما قالوا إلهي كعان دعادي سيوحا كم إذا النبي قال صلوات ربي وسلام عليه راد كلا وضع كبر شيء دلالك أي كجود دلالة أيان إن وناك كاربا أيا وحا كبر لي وهسجا كبر لي مرنا أيجي بإله لجا مجنجليا مرنا أثر كي كبر شيء وهسجا بإله لجا مجنجليا مركز النبي قال صلى الله عليه وسلم دعادي سيوحا كم إذا اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل إله وحن ما جنك أجاهي عاجسد هي وهسي عجزكم عوي لو ذا كلمة ويكلت بدلين عجزك وحل إلى هذا إنا تكري ويدبا خيرك يوناكي أود ومهيس تمر ومهيس تعجزي بالله كسل كان محل إلى هذا وكري كرتا أود دي وادها لكن ما قبليس حب بدنا وقونت كتير وعقلك كتير وكرتنا كتير لكن مع ذلك ويل فورره ما توسنكر حول ما قبل كتير ده كاسنا وحل إلى هذا وهسي بالله وكسل لبضب النبي إلهي وكم من قلت صلوات ربي وسلم عليه مرك إلهي نال ينقش وحاول قدام به هذا ربطه إن الوهسي كبحر هذينك قيب كمدة توس إلهي الذكر كيسي الطاعة كقابل وحنبي قلنا كسر صلى الله عليه وسلم منه متكين هذينك مركو ساحره شيطانكو سدح قنتيمود وقناتك كقنتيا سدح ذا قنتيمود مد والبا waxaa ku shaabadaysan oo ku garaacan habeen dheer baa jire iska seexo habeenkii waa wali waagiina ma dhawaa hurud seexo ku ku dhufanay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruuxi maduu soo kaco intuu naftiisa la dagaalamo canaanto soo kaco oo ilaahay xuso ilaan marka hurdada laga soo kacba adkaar baa jirta ilaahay lagu xuso markuu saa u soo kacayba ilaahay buu xusay saddexdii guntimood mid ka mid ah furmaysa waa ka soo kacay waa weysaystay guntintii labaad baa furmaysa waa soo kacay oo wuu tukaday guntintii saddexaad baa furmaysa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasuu waagu u baryayaa
asagoo firfircooni iyo nashaad leh wax qabasho doonaya naftiisuna aad u faraxsanta farax iyo firfircooni isagoo ku jirto buu waagu u bariyaya markaasuu leeyahay warsaaka talo waxaad ku dhaqaajisay ma waxbaa kaa hor imaan karay yani hamliga ku jira xoogga ku jira waa faraxsan yahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadduu sidaa yeeli waayo oo waagu u bariyo siduu u hurday sida baktigii sariirta u saarnaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam markaa waagu wuxuu u bariyayaa asagoo oo naftiisuna liito oo murugsan oo hammi iyo murugi saaran tahay ta kalena wahsanaya oo isqaadi karin sidaas daradeed daarto inaad wahsiga ka baxdo oo wax qabatood wax xaqiijiso habeenka qayb kamida ilaahay dhikrigiisa iyo taacada ku qaado daawooyinka ugu fiican